dhismo loo naqshadeeyay habkaani muuqaalka ka muuqda looguna talagalay goob waxbarasho ayaa beesha ree aadan ee degan degmada Burtin la doonayaan inay ka hirgeliyaan degmada. Dhismaha goobahani waxbarasho ayaa isugu jira iskuul ka kooban 7 fasal, 2 xafiis, 4 suuli iyo barxad ama dayr weyn, waxaana qaybtaasi lacagta ku baxaysa lagu qiimeeyay $32,818. Qaybta labaad waxay ka kooban tahay 2 dhismo oo isugu jira 6 qol, 2 suuli, bareendo, barxad weyn oo baakina iyo sidoo kale qayb kale oo ah 3 qol oo jiifa, hol weyn oo shirarka iyo sidoo kale bareendo ayaa iyana lacagteeda waxa lagu qiimeeyay ku baxaysa $42,496. marka la isku geeyo lacagta dhismayaashaasi ayaa noqonaysa $74,514. booska dhismahaasi laga dhisay ayaa isna qiimihiisu yahay $35,000. isku geyn lacagta dhismaha iyo tan booska ayaa isku gaaraysa $109,514. qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka, aqoon-yahanka, haweenka iyo dhalinyarada beesha ayaa kulan ay Burtula ku yeesheen waxa ay ku sheegeen in goobahani waxbarasho ay yihiin arrin aad reerku ugu baahan yahay, goobta loogu talagalay in laga dhisana ay tahay mid ku haboon isla markaana mudan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso, qof kastana doorkiisa ka qaato. gurigan la keenay oo madashana la ku keenay waan dhex fadhina hadda inta uu ku fadhiyo ee meesha yaallo iyo meesha ku yaallo intaba waa meel runtii ku haboon shaqada aad u idmateen oo naqshadeeda hadda naloo tilmaamay. waa meel dadkii xulay ay runtii ay aad uga fiirsadeen oo aysan ka samhaleelo kaga dhicin ay haleeleen. runtii waa meel magaalada dhexdeedii ah, waa meel la kala gaaro, waa meel wadooyinkii ku fadhiyaan, waa meel ku haboon, waa qayb ka mid ah qaybihii kale, waa meel dadkii lahaa la yaqaano, waa meel waxaan isleeyahay aad loo doortay oo laga shaqeeyey. waxaan leeyahay ayadana inta ka shaqaysay iyo sida uga shaqeeyaba ilaahay ha u bedelo, darajada iyo caqligooda khayr ha ugu bedelo. midda kale reer aadan guud waxaan leeyahay dhaqaale waa haystaa, hantina waa haystaa, waxa ka maqan waa isku xirnaantii. waxaa loo baahan yahay marka dhaqaalaha haddii aad kaysataan oo cid ku haleysa, haddii qof ku haleeyo dhaqaalahaas ma baxayo. waxaa la karaa kulligeen innagoo dhan ama gudaha joogna aan dibadda jirro, idinka hormud noo ah kulligeen dibadda jooga ee qorshaha salaysataan. dabcan hawsha hawl iskaga talagalay ma aha, waxaa la ka rabaa in aad hawsha seeta ugu talagashaan oo gabadh iyo wiil ay ku talagalaan oo qayb kasta la isugu talagalo. saasaan aan oran lahaa annagu ka Soomaali ahaan inteeda halka joogta inteeda isu timid iyo inteeda ismaqli karna waxaan ku go'aansanay inaan ka qayb galno. waxaan joognaa xaruntii loogu talagalay kulleejka. waxaana qanciyey anigu hadda ka hor dadkii yimidna waa ahaa. waxaana qanciyey qaabadiisa, waa mutafac hadday tahay baaxaddiisa iyo haddii ay tahay magaalada u dhowaanteeda iyo populationka. waxaan leeyahay waa boos ku habban shaqada waxyaalaha loo idmaday. waxaan idinkaga cudadaaraynaa maalin dhoweyd oo xoogaa ay hawshu dib dhacday. wax weynna ma ahayn ee kala aragti oo qof walba uu leeyahay wax siyaadi yay ahayd. arrintaasuna si fiican bay ku dhammaatay. waxaannu idiin sheegaynaa intayadan meesha fadhida iyo intii kale oo wax garanaysaaba diyaar waxay u tahay oo dhiiri gelinaysaa hawshaa iyo midii kale oo la mid ah inay barbarkeeda maskax iyo maal iyo muruq wixii ay kaga qayb qaadan kardho ay kaga qayb qaadato. waxaan la qabaa hadalka odayaashii iga horreeyey intay ku hadleen aad baanan ugu mahadcelinayaa. haddaanu nahay dadka iyaga Soomaaliya jooga arrintan waan soo dhawaynaynaa, waanan garab taagannahay. waxaanuna qabsanaynaa dhinaca iyaga, hadday xoog tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday tabar tahay, dhanka iyagaan qabsanaynaa. barbarkay ka baxdaa waa bakayla liqeen. qof weynu ku farxo oo waxgarada oo islaama weeye, waa wax qabasho loo baahan yahay. waa ballan qaadaya inaan shaqeeyo, contribution kana inaan ka qayb galo waa ballan qaadiyo, iskii u qabsana inaan wax kaga shaqeeyo waa ballan qaadiyo.
intaas waa midda ii gaarka midda reer aadanka qurbaha jira oo fakarkaan keenay oo inay dhulkaas noo gadaan oo noo dhisaan keenay aan annaguba qaybta iyada ku darsaneen wax kasta waa u mahadcelinaya dadkaas noo kacay ilaah baan u baryaynaa inay ilaahay barakeeyo ilaah waa ku barinay ilaah casar weeyo salaad baa qabnaa rabbiyow dadka noo barakee meesha ilaah noo dhis rabbiyow noo dhis rabbiyow noo dhis rabbiyow noo dhis yaysa saas dhicin waa in salaamay dhammaantiin gurigan iyo meeshuu ku yaal iyo muhiimadiisa iyo sida loo soo xulay waa sida odayaashii hore uga hadleen waa muhiim dadka soo dooray waxaan leenahay way dadaaleenna khayr allah siiyo inuu muhiim yahayna intiina kale saasaan ugu sheegaynaa arrintaas waa sidii looga hadlay muhiimadda inoo leedahana waa laga hadlay